war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhanka cirka oo Mareykanka uu ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka Baa ee koonfurta Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay taariikhda ay ku aasaaseen 13 bishii koowaad sanada 2021 ay duqeyn dhanka cirka ay ka fuliyeen deegaanka Bulafula ee gobolka Baa isla markaana ay ku beegsadeen xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab. weerarkaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay in ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay ku taageerayeen weerarkaasi ciidanka dowladda Soomaaliya oo dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay taliska ciidamada howlgalka gaarka ee Mareykanka ee qaaradda Afrika. duqeynta ka dhacday Bulafula ayaa waxa muujinaysa go'aanka waxaana hoos u dhigayna ayay yiraahdeen awoodda al-shabaab iyo hanjabaadaha ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya iyo wadamada deriska. waxaana qorsheynaynaa in aan ka gungaarno isla markaana aan soo afjarno dagaalamayaasha al-shabaab. weli wax war kama aysan soo bixin al-shabaab oo ku aadan sheegashada Mareykanka oo ah in saraakiil ka tirsan al-shabaab lagu dilay deegaanka Bulafula oo hoos yimaada degmada Dinsore ee gobolka Baa ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Mareykanka ayaa inta badan duqeymo dhanka cirka ka fuliya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana duqeyntan ku soo aadaysa xilli Mareykanka inta badan ciidamadiisa ka joogay Soomaaliya oo kala baxay isla markaana ay yaraadeen duqeymihii oo ka furin jiray Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa wadar jeero hore duqeymo ku qaaday deegaano lagu tuhmayo inay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaana toddobaadkii soo dhaafay weerar ciidankani ah ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa komandoska dowladda Soomaaliya deegaanka ku yabarow ee gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo sheegeen inay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab.